مع الله أجمل، مع الله تحلو الحياة، وقلبي إليه تبتل صياما دعاء الصلاة. حياتي مع الله أجمل، مع الله تحلو الحياة، وقلبي إليه تبتل صياما دعاء الصلاة. بشهر مزاياه أكمل، تفوق الشهور سواه، ففيه الكتاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال أن نحن الحمد لله ما دام إلهي سبحانه وتعالى أونا قرسيي بشن بركيسن رمضان، بش قرآنك، بش توبضة، بش زكاة، بش صدقة، بش ذكرك، بالوناك يقير أو كلانستي، بش جعيلك، بش فرحدة، بش اسكو إماتنك، بش إسعاوينتا، بش اسكو غرغارك، وحوال بكلانستي، البابلة جنة أودان لفريو، البابلة نارتا أودان لحريو، بالبركة وضطا، بالرحمة وضطا، بالنحريس وضطا، بالدنبداف وضطا، بالوحوال بوضطا، بالحريو شياطين تأودان ما دام إله سبحانه وتعالى أونا قرسيا نحن الحمد لله. sababtoo ah ilaahay subxaanahu wa tacaala qofkuu jecel yahay oo keliya ayuu gaarsiiyaa. anigii adigana kuwa ayaa ka mid nahay, aan ka faa'iidaysan. حياتي مع الله أجمل، مع الله تحلو الحياة، وقلبي إليه تبتل صياما دعاء الصلاة. waxaan halkan ugu hambalyeenayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo qof kastoo i daawanaya. waxaan leeyahay waxay tahay Ramadaan mubaarak. ilaahay subxaanahu wa tacaala bishana ka dhigo bishaan ka faa'iidaysanayno. nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay haddii ay timaado bisha Ramadaan waxaa la furaa waxay tahay albaabyada jannada oo dhan, waxaana la xiraa waxay tahay albaabyada naarta. taa macnaheedu waxaan ka fahmaynaa waxay tahay qof kastoo rabo inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala u dhowaado isla marka uu ka faa'iidaysto jannada naciimkeeda iyo khayrkeeda barwaaqadeeda, ha u tartamo oo ha dadaalo si ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u waafajiyo isla markaasi magaciisa ugu qoro inuu ka mid yahay ahlu jannada. ilaahay subxaanahu wa tacaala naga mid dhiga kuwa ka faa'iidaysanaya bishan barakaysan Ramadaan. حياتي مع الله أجمل، مع الله تحلو الحياة، وقلبي إليه تبتل صياما دعاء الصلاة. حياتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم أبو بكر السلام ورحمة ما شاء الله الله. وبركاته. سيد حيادة خير في عنك الله خير سمان يكرمك. وفي سمان سدوا ما شاء الله ودوها إلىكم بركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما ولا الله دعوانا يميل بدوك كجوكتان أديت بو سلامتي كسو هذا برنامج كينا رمضان كمعلومة إن شاء الله تعالى دولا إدمو عن كهد لدونو قصة النبي موسى عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. عمر هيا أبو بكر. سنضب بدن أيا وحان كهدنا وحيتها مغنى وحان كهدنا وحيتها قصة النبي يوسف. أديان. مغنى وحان كهدنا وحيتها قوحضا نرشي وحيابها يعني قفك لو باهي إنه سميس ونولا نرشان أديان. نول قوح بدن. أديان. سنة كان محي وجود وانت هاي سنة كله. waxaan isleeyahay sanadkan sanadaha kale waxay ugu duwan tahay waa laba arrimood. أيه. midda koowaad waxay tahay walaalaha waxay naga sugayeen waxay tahay qiso ay naga codsadeen. codsigooda anagoo taxgelinay insha Allah ta'ala ayaan jeclay sanadkan aan duubno qissatu Musa alayhi salatu wassalaam. waa midda koowaad. صح. midda labaad waxay tahay maadaama waaqi hadda aan ku sugannahay oo haddii nabi Musa alayhi salaam qisadiisana aan isleenahay waa qiso tabaqaysa waaqi hadda aan joogno. أديان. Abu Bakr inta xalqooyinka kale aan gelin ama aan ka baraysan maxaad ummadda Soomaaliyeed dhihi lahayd hambalyada bisha Ramadaan ku aadan. bal Ramadaan maanta koowaad maanta maxaad walaalaha ku daawanay ummadda Soomaaliyeed dhammaantood ma sha Allah taala ku taageera ama asxaabta familkaaga maxaad fariintan adigoo ugu faa'iideysan qisada Musa alayhi salaam oo dhihi lahayd.
waxaan ilaa waxay tahay horta ramadaan mubaarak ma baduka ka joogtaan qofka mu'minka ah wuxuu ku farxaa waxay tahay taacada ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay wuxuu leeyahay qul bifadli illaahi wa biraxmatihi fabidaalika falyafraxuu allah yacni fadliga ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo maalmaha wanaaga badan yacni bishan quruxda badan ilaahay subxaanahu wa tacaala uuna gaarsiiyey waxaa loo baahan yahay waxay tahay qofka inuu farxo xitaa nabi sal slam uu leeyahay lisaa'imi farxataan allah soonkan farxad laga dhex helaa soonka farxada laga dhex helaa nabi sal slam wuxuu leeyahay waxay tahay qofka sooman laba farxad ayaa u sugnaatay الله يعني وصومية يعني ما تنقاجة يعني محل هلية وأنا فرحية سيدي أبو بكر تاس مفهم يعني قبل laba mid weeye nabi sal slam ayaa inoo dhammaystiray wuxuu leeyahay waxay tahay midka ugu horeeya waxay tahay waa markuu afuraya الله وما كان نوش فحد أنت نقول صدق صومان sax maanta dhan waa sooman tahay sambuuskii bura u jeedaa waa farxaysaa الله أنا عنتنا عني فحد عبادة إيه أصلا aadiya يعني عنتنا عني ربطت وفحد فرحية وعبادة أصلا sax ما حاجة روح بان دينتين midka labaadna waxay tahay marka yacni ilaahay subxaanahu wa tacaala la kulantid الله aad إله سبحانه aragtid وتعالى. maalmihii aad soomneed ajarkiisa markaad ajarka iyo xasanaadka iyo abaalmarinta markaad aragtid waad farxaysaa إله سبحانه وتعالى كوا سنة مديقة كوا آمين. فرحة مع عند القيامة سيدا ما كان عنتنا صورة دقا يقول فرحان صح ما نقيم إله سبحانه وتعالى إيدكم المؤمنين دي صالحين كوا فرحة إله سبحانه وتعالى مديقة أبو آمين. بكر قصوين كانوا موسى عليه السلام قوان كلا إن بانو كغا شيكي صح محاكم ده وحيالها صدق حلقات ورمضان أولا معنى قصتو أن كغا شيكي محاكم ده وهذا بل دعنا قاوا نغو شيكي بل انت عن بالما ولا خاقو حيسي وقوان حيسي وقوان وقتا ما شاء الله waxaan u safri doonaa waxay tahay dhammaanteennaba masar waxaan ka bilaabi doonaa waxay tahay fircawn iyo dulmiga uu dulminayay reer bani israa'iil سبحان الله kadibna hooyada nabi muuse oo yacni nabi muuse oo la dhalayo kadibna yacni oo dilka xukuma in la dilabo ha in la dilo oo fircawn isagoo dhahaya yacni cunug walbo dhalanaya ha la dilo kadibna hooyada nabi muuse oo nabi muuse dhalaysa kadibna nabi muuse asigoo lagu barbaarinayo guriga fircawn الله kadibna asigoo sii weynaanaya haaruun iyo nabi muuse oo la dhahayo aada fircawn kadibna ku dhaha hadal wanaagsan عجيب أبو بكر بس أنت أنا أوكي ديك ولا حاليا متخيل يعني ما شاء الله حلقوين صار صعد إن شاء الله تعالى لا تساك بش إن شاء الله تعالى رمضان كان إن شاء الله تعالى محلي لا إكلاس عندهم لكن سوى ونكسن إنه وقع يعني حقيقة أنا أرجع بعد وحان تاجنا بعد بلون بس لكن إن شاء الله تعالى حلقوين كلا صار صعد إن شاء الله تعالى عن مد وقادم دونا عن إسلام جوجنو رمضان كان وعلىها محلية ذا قصة سجونية بل inay sidee u faa'iideysanayaan qisadan qisadan waxa uu faa'iideyskanaa waxay doonto walaalayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aankiisa wuxuu ku leeyahay yacni faqsus alqasasa lacallahum yatafakkaruun ugu sheekee qisooyinka si ay u fakaraan aniga waxay ila tahay qisadan hadda nabi muuse casharo badan ayaa ku jirto qayb walba waxaa laga yaabaa 5 cashar 10 cashar inay ku jirto maalin walba si fiican ula soco qalin iyo waqad soo qabo maalin walba waxaa ka baratid ku qoro insha allahu tacaala aduu laa idmo waa bil barakaysan qisadana insha allahu tacaala cashar ka baro kadib noloshada ku dabaq insha allahu tacaala ramadaan kan maalmaha ugu dambeeyana waa la is weydiin doonaa insha allahu tacaala waxay ka faa'iideysteen maadaama anaga aan waqti gelin insha allahu tacaala si dhacdooyinka ugu muhiimsan aan isleenahay dhalinyarada iyo ummadda Soomaaliyeed faa'iido u tahay insha allahu tacaala aan qaadan doono waxaan jecelahay waxay tahay dhammaan inta daawanaysa meel kasta naga daawanaya ama television ha noqoto ama social media ha noqoto in ay qalin iyo book soo qaataan isla markaa insha allahu tacaala riwaan kasto xalqada ay ka faa'iideen ay qoraan maalmaha ugu dambeeya bishan waxaan jecelahay aan ku farxina waxay tahay markii wala email loo soo diran ahaan waxaas ka faa'iidnay waxaas ka baranay ilaahay subhanahu wa ta'ala ku barkeeyo oo barka aad ma san baasha taasi wanaagsan oo qeexday jazakallahu khayr insha Allah حياتي مع الله أجمل مع الله تحلو الحياة وقلبي إليه تبتل صياما دعاء الصلاة حياتي مع ولا ليال qisooyinka quraanka oo dhan waxa noo sheekanaya waa Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay man asdaqu min Allah hadiisa ya karam badan sheekooyinka iyo hadalada qiimaha badan oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala noo sheekanaya dhammaan waa dhacdooyin aan ku cibr qaadanin dhammaan waa casharo Ilaahay subhanahu wa ta'ala inooga bariyo nolosheena si ay nolosheena noqoto nolol toosan isla markaa aan lahayn leexasho
walaalayaal ahamiyadda qisooyinka waxaa ka mid ah in ilaahay subxaanahu wa tacaala ina tusayo ina barayo in nebiyada oo dhan ay yihiin nebiyo isku mid ah hal ujeeda loo soo diray laa ilaaha ilaa ana facbuduun inay cibaadada dadka ay baraan oo cibaadada ilaahay subxaanahu wa tacaala kaligiis inuu xaq u leeyahay waxaa ka mid ah sababaha oo qisooyinka ilaahay subxaanahu inooga sheekeynayo in nebiga sala allahu calayhi wasallam qalbigiisa loogu dejiyo iyo ummaddiisa oo dhan qalbigooda loogu dejiyo waxaa ka mid ah inaan dhammaanteen aan qirayno aan rumaysannahay nebiyada oo dhan inaan rumaysannahay aan jecelnahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu dhowaanayno iyo kutubada loo soo diray taasi dhan waa ahmiyooyinka qisooyinka insha allahu tacaala qisatu muusa waxay noo noqon doontaa ahmiyad gooni ah insha allahu tacaala aan isla socono حياتي مع الله أجمل مع الله تحلو الحياة وقلبي إليه تبتل صياما دعاء